si online ah ku baro luqadaha kala ah Englishka iyo Carabiga adigoo gurigaaga jooga. Ugu horeyn aan warbixin iyo tusaale idinka siiyo luqadda Englishka. Si online ah ku baro luqadda Englishka adigoo gurigaaga jooga. Koorsada Englishka waa 3 level ama 3 heer. Heerka koowaad waa Basic English oo ah aasaaska luqadda Englishka. Waxaynu ugu talagalnay ardayda bilowga ah. Casharada aad ku qaadan doonto waxaa ka mid ah A, B, C. Darsigan waxaynu ku baran doonaa alphabet spellings. Alphabet spellings waa hingaada alifbeetada A to Z. A ilaa iyo Z ayaynu ku baran doonaa insha Allah. A for apple, apple. A, B, P, L, E. Apple, tufaax. Classroom language. May I come in please? Ma soo geli karaa gudaha? Fadlan. Clean the board please. Body parts. Casharkan waxaynu ku baranaynaa qaybaha jirka. Body parts. Qaybaha jirka. Head. Madaxa. Head. Madaxa. This is a head. Kani waa madax. Kuwaasina waa qayb ka mid ah casharada Basic Englishka ama aas-aasiga. Heerka labaad ee luqadda Englishka oo ah Spoken English waxa weeyaan ku hadalka luqadda Englishka. Waxaynu ku baran doonaa English for daily life. Englishka loogu talagalay nolol maalmeedka. Casharada aynu ku baran doono waa casharo aad muhiim ah oo ku saabsan nolosha sida salaamaha, isbarashada, maqaayadda, hoteelka, airportka, dhakhtarka, farmashiyaha iyo wax kasta oo muhiim ah oo ku saabsan nolosha. Bal aynu eegno qaar ka mid ah casharada Spoken Englishka. Hi, hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. At the pharmacy waa farmashiyaha. Casharkan waxaynu ku baran doonaa sida daawo looga iibsado farmashiga. Dialogue wada sheekaysi. Chemist iyo customer ayaa sheekaysanaya. Chemist waa qofka daawada iibiyo. Customer macaamilka. What can I do for you, sir? What can I do for you, sir? Mudane, maxaan kuu qabtaa? I want to buy some medicines. I want waxaan doonayaa to buy inaan iibsado some medicines xoogaa daawo ah. Cashirkeena ciwaankiisu waxa weeye at the restaurant maqaayadda. Number 1, asking what someone wants to order. Marka aad weydiinaysid waxa qof uu doonayo in uu dalbado. Waa adigoo ah cavalieri ama cavalieriyad. Asking weydiinta what waxa someone qofi wants uu doonayo to order in uu dalbado. Waxaad leedahay qofka martida ah ee maqaaxida kugu yimid, may I take your order, sir? May I take miyaan qaadaa your order dalabkaaga, sir mudane? Kuwaasina waa qayb ka mid ah casharada Spoken Englishka. Level 3 ama heerka saddexaad waa grammar. Waa barashada naxwaha luqadda Englishka. Bal aynu eegno casharo ka mid ah casharada naxwaha Englishka. A noun is a word that's used to name a person, animal, place, thing, or idea. A noun is a word waa erey that's used loo isticmaalo to name in lagu magacaabo a person qof, animal xayawaan, place meel ama goob, thing shay, or idea ama fikrad. A verb is a transitive when the action passes over from the subject to the object. A verb falku ama ficilka is a transitive wuxuu yahay mid gudba when goortii the action falka la sameynayo passes over uu kasoo gudbo from the subject falsameeyaha to u gudbayo the object falku dhacaha. Cashirkeenan waxaynu ku baran doonaa tensiga koowaad ee luqadda Englishka oo loo yaqaano simple present tense ama present simple. Intaynan bilaabin cashirka ka hor aynu ogaano waxa loo isticmaalo tensigan. Si guud ahaaneed tenseska Ingiriiska waxaa loo isticmaalaa
in lagu qeexo waqtiyada kala duwan ee ficilka la sameeyo. Tensigan waxaynu u isticmaalaynaa ficilka ama falka sida joogtada ah loo sameeyo. Tusaale, haddaad tahay arday, subax kasto waxaad aadaa dugsi. Marka ficilka aadidda waa ficil joogto ku ah. Waxaad leedahay, anigu waxaan aadaa dugsi subax kasta. I go to school every morning. Haatanna ku soo dhawaada luqadda Carabiga. Si online ah ku baro luqadda Carabiga adigoo jooga gurigaaga. Koorsada luqadda Carabiga aynu bixinno waa 3 level ama 3 heer. Mustawaha koowaad waxaynu ugu talagalnay ardayda bilowga ah. Casharada lagu dhiganayo heerka koowaadna waxaa ka mid ah هذا بيت كان هو بيت وقري. هذا مسجد كان هو مسجد. هذا باب كان هو الباب. حوار بعد كان قرن سعادة ياسر. الكتاب محمد هذا يا ياسر كان كتابك محمد با ياسر. لا أبو ياسر هذا كتاب حامد كان هو كتابك حامد. أين كتاب محمد أو كتابك محمد؟ heerka labaad waa duruus loogu talagalay ardayda heerka dhexe ah. Casharada lagu qaadanayana waxaa ka mid ah يا أحمد صباح الخير يا أخي. صباح الخير يا أخي. صباح وناكسن ولا صباح وناكسن. كمال وحيد أهلا وسهلا يا أخي. سولو ولا أحمد. أنا أحمد عبد الله من الفلبين. أنا أحمد بانا هاي أنا عبد الله وحانا كايم الفلبين بكسو كذا. أنا كمال الدين من تركيا. أنا كمال الدين بانا هاي تركي بكسو كذا. أحمد هل أنت طالب في المعهد؟ معهد أرضي هذه؟ نعم أنا طالب في المعهد. أنا وحنا أرضي معهد كدكتا. في أي مستوى أنت؟ هذه مستويات هاي هيركيبات هاي. في أي مستوى أنت؟ مستوى هذه. أنا في المستوى المتقدم. هيرك السرع يندكتا. وأنت أدنى؟ أنا طالب جديد. أنا وحنا أرضي عسب. heerka saddexaad waxaynu ugu talagalnay ardayda heerkooda sareeyo laakiin doonayo si fiican ay u bartaan ku hadalka iyo naxwaha luqadda Carabiga. Duruusta lagu dhiganayana waxaa ka mid ah بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن التاء في آخر الكلمة. هذا الكلمة آخر كذا قشة. الدرس يعني كساب سيناي. هذا آخر كلمة قشة لبا تاء يعني تاء مفتوحة ليرة هذا إيو. تاء كلام حاو مربوطة ليرة هذا لبا تاء يعني. التاء المفتوحة أنكوهر مرنو. هذا تاء درت ليرة هذا. هي التي تبقى عند التلفظ على حالتها. والتاء محوها مركز الغدة واقع. حالة وحوية كباقي أهانيسة. إذا وقفنا على آخر الكلمة بالسكون. كلمة آخر كذا ما كان كتشوك سنة السكون الرابين كلها تشوك سنة. ولا تنقلب اسم بدلس هاء اسم بدلس مثل زيت زيت. ugu dambayn luqadahan waxaad si online ah ku baran kartaa adigoo gurigaaga jooga. Qaababka duruusta loo qaato: 1. waxaad ku qaadan kartaa application-ka Telegram-ka si group ah ama koox ah adigoo duruusta la qaadanayo arday maalin kasta. 2. waxaad duruusta ku qaadan kartaa application-ka WhatsApp-ka adigoo si gaar ah ama shakhsi ah casharadaada u qaadan kara maalin kasta. 3. waxaad ka qayb qaadan kartaa fasallada sida live-ka ah u baxa ee lagu dhigto application-ka loo yaqaano Zoom-ka. Waxaad la qaadanaysaa arday. 4. waxaad casharada si xor ah oo keliga ah ku qaadan kartaa website-ka ama application-ka Fahan Academy. Wixii faahfaahin ah oo intaa ka dheeraya fadlan la xiriir WhatsApp number-ka shaashada kaaga muuqda.